garaadadana waxaan leenahay dagaal weyn gacantiina ku jira innaga bulshada galiyay innaga hawshan la yimiday waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo saaxiibka xanuunsan waxaan leeyahay in aad maanta dib ugu noqoto ninkii sida kooxdu ku gowracay oo aad xisbigii aad ka gaadhay madaxweyne ku-xigeenka aad member shakhsi ka noqoto waxaan leeyahay siyaasaddaasi waa saakadnimo mar hadduu xisbigii sidan yahay waxaan leeyahay xisbiga laftiisa saakaday waxaa maanta laga bilaabo deegaankii aan ku materay 3 jeer aan ku soo materay oo waliba markii uu dambeeyay uu isagu farshiyay dadka uu doortay uu isagu farshiyay facabkayga iyo colaad badan iyo dagaalo badan oo soo dhaxay taa uu warba wixii marka la tashaday aqooyaanka marka la tashaday wax garadka marka la tashaday waxay aaqiladii marka la tashaday ganacsatadii waxay ila go'aamiyeen aqoon-yahan Cabdinaasir Jaamac Xuush isla markaasna kamid ahaa siyaasiyiintii ugu firfircoonaa ee xisbiga wadani ee gobolka Niisaley isagoo hore uga mid ahaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada Saylac xildhibaan hore Cabdinaasir Jaamac Xuush oo maanta ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Somaliland isagoo sheegay gabi ahaanba inuu isaga baxay xisbiga wadani oo in badan uu kamid ahaa isla markaasna ahaa siyaasiyiintii xisbiga wadani ugu firfircoon ee gobolka Niisaley bixitaanka xisbiga uu kamid ahaa ee wadani Cabdinaasir Jaamac Xuush uu ku sababeeyay inuu noqdo xisbiga wadani meel ay isugu yimaadeen dadka siyaasadda ku fashilmay waxa uu carabka ku dhuftay inay dadkaasi kamid yihiin wasiirkii hore beeraha Axmed Muumin Said isagoo ku sheegay inuu yahay shakhsi isagu siyaasadda ku fashilmay isla markaasina taageerayaashiisa kalsooni darro ku riday kana iibiye been aan dhamaanaynin isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inuu ku biiray xisbiga kulmiye oo uu sheegay inuuna jirin xisbi haatan siyaasad ahaan rajo dhama waxaana hadaladiisa kamid ah sida tan ka hadlayaa xaaladdan dalku galay gaar ahaan xaaladda gobolka Sool oo maanta saameyn weyn dadka ku yeeshay hadday tahay xaalad dhaqaale iyo xaalad bulsho iyo xaalad horumarineedba waxaa leeyahay garaadada maanta looma baahna sida qofkiina uu soo shaqeeyo iska xafiyo ha shaqeysaan leeyahay dagaal weyn gacantiina ku jira innaga bulshada galiyay innaga hawshan la yimiday waxaan leeyahay aqligu ha shaqeeyo intaana hay lagu joogto wixii maanta ka dambeeyay inuu weli naga dhiman dalkuna waa Somaliland xuduudihii Ingiriiskana waa la yaqaan ku joogeen halkii lagu heshiiyay waa la garanayaa qabyaaladii iyo qarannimadana la kala ilaaliyo nabadana hal laga taliyo saaxiibkay Axmed Muumin Said oo aan siyaasadda maalin ka taabay wandii maalin baan wada galay isaguna wuxuu noqday gudoomiyihii xisbiga ee degmada Boorama Udub ana waxaan noqday gudoomiyihii degmada Saylac xisbiga Udub 2006 ilaa inta waxaan kusoo gudbay siyaasadda xisbigii Udub markii uu doorashada madaxweynaha laga badiyay oo ku haray tartankii dambe golayaasha deegaanka ana waxaan dib uga tartamay ana markii hore golayaasha deegaanka degmada Saylac xisbiga Udub ku soo galay waxaan dib uga tartamay xisbigii buuxiyay booskii xisbiga guberneeyay oo ahaa wadani waxaan ka noqday haddana gudoomiyihii xisbigaas ee gobolka Saylac degmada Saylac haddana waxaan ka tartamay golayaasha deegaanka ee xisbiga ku soo baxay waxaan ahaa ninka qura ee deegaanka ama beesha uga soo baxay xisbiga aniga oo ahaa golayaasha deegaanka ee Soomaaliland lagu bilaabay dimuqraadiyadda madaxweynaha Rayaal ku bilaabay shakhsigii ugu daayadaa golayaasha deegaanka Soomaaliland ugu horeeyay dimuqraadiyadda 2002 Soomaaliland shakhsigii ugu daayadaa golayaasha deegaanka noqda fursad aan helay haddana waxaan mar labaad ku guuleystay oo ay deegaankaygu ay yiraahdeen mar labaad lagu matalo walihii deegaanka oo aan ka tartamay oo aan ku guuleystay mar saddexaad waxaan ka tartamay xisbigii wadani oo deegaankaygu yiraahdeen haddana mar saddexaad lagu matalo walihii deegaanka oo aan walihii deegaanka mar saddexaad ku soo noqday intaa waa labadaas jeer 18 sano in xisbiga kamid ah wadani anigu weligii siyaasadii ma guurguurin weligii xisbigii aan taarika qabsaday oo ma ku dhameystay saaxiibka xanuunsan waxaan leeyahay si toos baa lagu gowracay markii aad ka tagisay xisbiga wadani madaxweyne gudoomiyaha uu saluugay ama dhaqaalaha noqoto
أما بشهر نقطة أنا بيرك عيب وقعتي أو مصلحة صاحب قطعي ولا هاي مكو حبيب مع باصدر محمد علي وقاعدين يودي كتوري زفار حم وجود عن كاسي إنك الصيف أن كفي عفتنا الدقة عن قبل كأوضل بشدة كسوج جدي وكوفي عفتنا وأن تصنع اسمه إن أبطل حضنا تاسنا واحد على الشيء إن حسبه حكومة دي اللي قاعد تكتير وموسى قربودين كها أي حكومة مستوى وشل ما كعرفته وسير شلس أو أفر سنة وسير كبيرها عطيه أديو أفر سنة وسير كبيرها أو حسبه شل حكومة وعي مالي ولا كعايد تكتير ما شاشة ده أتوقع تقدر كعايد تكتير حضنا إن أضمنت dib ugu noqoto ninkii sida faaxo ku gowracay oo xisbiga aad gaadhay madaxweyne ku-xigeenka aad member shakhsi ka noqoto waxaan leeyahay siyaasadaasi waa saakadnimo mana fiicna ummadaada iyo deegaankaaga soo iskuma helaysid inaad cod xisbiga u keenin maadaama danahaaga shakhsiyad aad raacday waxaan leeyahay xisbiga laftiisa saakaday xisbiga laftiisa 18 sano waxa la waxa ka haynaa ma jirto annaga isban garayna annaga isbixina weli noomay gobolka salban gudoomiye ka ahaa degmada Siraac gudoomiye ka soo noqday weli waxayaan xafiis yahay furaan iyo hawl ay la qabtaan doorashadii ugu dambeysay waxaan fashiliyay ana xubnihii ku hadhay imika dhaxasugayaasha qof labaad ku jira isaga sabab u ah rabno soo maxamed cali qabyal uu noo diiday muraaqabintii iyo dadkii noo shaqeeyay lahaa goobaha iyaga cidna tisaabo anagoo taa u soo qaadanay haddana in shalay dadka haddana dib u soo noqon karo waxaan arkaa xisbigaas inuu fashilmay oo uu deegaanka wax u qaban karin bulshada wax u qaban karin isaga laftiisa wax u qabsan karin على كل حال على ما تلقى بلابه حسبي وطني ما رضيه فشل ما تلقى بلابه ديان كي أنكم تري صدق تجارة كسور متري هو اللي ما تجيب كده بيجي ويسوق فرشية تفكر ونقدرتين ويسوق الفرشية ما كان لا تشري وياك ما كان لا تشري وحكرت ما كان لا تشري وحي عقلتي ما كان لا تشري قرعستي وحي لك واني من حسبك كبح نطعك هيك وعلى أحمد ديري أرد قدرال وركّ مقالة السيلع